dhowrkan qodob haddii uuna qofku lahayn ma odhan karno xeerkii raganimada iyo buuxiyey oo waa nin rag oo dhammaystiran. goorma ayuu ninka la ogaadaa inuu nin raga noqday oo raganimada buuxiyey? sax waa goorma waqtimaad leedahay? run ahaantii waa su-aal aada u wanaagsan oo su-aal wax badan furfuri karta. su-aasha waxay ku leedahay goormaa la ogaadaa ninka raggii in uu noqday ama uu gaadhay heerkii raganimada, stagekii uu noqdaa nin raga oo dhammaystiran. horta mid waxaan ogahay karaamada iyo caqliga iyo sharaftu inayna ku xidhnayn age oo ilaahay qofka ugu talagalay haybadda uu siiyo. weliba waxaa aasaas u ah habka uu u soo koray, meeshuu ku soo koray. waxaa laga yaabaa waxaad arkaysaa nin 20 jira haddana caqligiisu ka wanaagsan yahay ka 40 jirka. soo markaa kuma xidhno ninka raggii inuu noqdo nin rag oo dhammaystiran age. taa horta waa qalad inaad aamintaa. ninka raggii waxaan odhan karaa markuu dhammaystiran yahay waa caqliyadiisa, ilaa halka laga socdo waa caqliga moogta. ninka ragga wuxuu noqdaa qofku marka qaabka uu hadlayo iyo sida uu u dhageysanayo wax iyo sida uu u fikirayo la arko. waxaan odhan karaa ninkaasi waa nin rag oo dhammaystiran. bulshadeena waad aragteen aad bay u kala duwan yihiin, dad badan oo kala duwan baa ku jira. dhowrkan qodob haddii uuna qofku lahayn ma odhan karno xeerkii raganimada iyo buuxiyey oo waa nin rag oo dhammaystiran. kow, hadduu ninka raggii akhlaaq lahayn. akhlaaqda waxaan ka horreysiin ninka raggii hadduuna ahayn nin alla ka cabsado oo diintiisa jecel oo ilaaliya diinta oo garanaya wuxuu ilaahay u abuuray oo salaadiisa aanan tukanin oo aanan soomin, meeshuu doonaba ha ku noolaado. ninkaasi xeerkii raganimada ma buuxin. suu doono laandheernimo iyo wuxuu doonta ha sheegto, laakiin nin ilaahay aan ka cabsoon nin raga maaha. soo ma taa waa isla garanay. qodobka labaad waxa weeye ninka ragga ee dhammayska tiran ee caadiga logic ahaan markaan eegno waa ninka akhlaaqda leh. akhlaaqda aan ka hadlayno waa maxay? waa qof ixtiraam badan, afgaaban, dhacdhac badnayn, dadka aan caayin, aan dadka maagin, ummadda ilaahay ay ka magan gasho. ninkaas waa nin rageed baa la odhan karaa. khaasatan aan dumarka u gafin oo dumarka la xifaaltamino meelaha ku caacay. ninkaasina waa nin rageed uu dhammaystiran. qodobka saddexaadna waxa weeyaan ninka raggii wuxuu uu rabo uu garanaya. waa qof automatically garanaya waxa loo abuuray iyo wuxuu dunidan u saaran u joogo. waa nin adduunya aakhiro u shaqaysta. waa nin aan jiifin, waa nin aan maqaaxiyaha shaah ku cabin, dubnadna ku ciyaarin. waa nin intuu tooso aroortii shaqo taga oo u soo shaqeeya qoyskiisa ama naftiisa ama qaraabadiisa. kolba waxay ku xidhan tahay qofku yaa uu mas-uul ka yahay. ninku hadduuna shaqaysan, weliba khaasatan Yurub marka la joogaan ka hadlaynaa, xataa wadankii ninka raggii 25 jir markuu ka sareeyo meeshuu doono ha galo ha isqasbo, qasab waxa ku ah inuu nin raga noqdo uu dhammaystiro maxaan ku dhahay raganimadii, shuruudii raganimada waa inuu shaqaystaa. maalinkii xataa $1 ha keeno. ninka aan $1 keenin ma odhan karo waa nin rageed. waad fahantaan filaya halkan ka hadlay. so waxaan ogahay qodobadaas in aad igu khilaafi doontaan rag badan oo idin kamid ah oo i dhageysan doona ama arkaya videogan, laakiin waa fikirkayga. caqliyan markaad si fiican oo dhiib aad u dhageysatana waxaad ila qaadan doontaa 3 qodob, dhowrka qodob ee soo sheegay inay saxsan yihiin.